bishaan hadda aynu ku jirro ugu yaraan 4 kiisoo dile iyo 5 kufsiyaa dhacay kiiska hadda baarista ku jira maayo 4 kala kufsiga waa lahayd dilkiina xalay ninka dhintay oo ninkii dilay la yaqaan oo inta saldhiga la keenay qola ay saldhigiina hansab gareeyeen ninkiina la baxeen ilaa askarigu haddii bala ka xoog rooni u timaado qofku wuxuu ku dhintay ma yaqaan maxaa ku eedaynaysan biliiska kulligeen wada laandheeraynu nahay kibraaniya wiilkeenna kibirka u dilay innagaa u doodayna anaa odayaasha ka mida maalin walba mag baanu bixinaa dulmiya laakiin qofka waa in la waafajiyaa sharciga qofku 3 qodob buu leeyahay in la qisaaso in la cafiyo iyo in diya laga qaato laakiin waa in la mariyaa nidaamkii odayaashu iyagu waxna ma dilaan ajashana ma hayaan laakiin cilada kaliya jirta waxa weeye daalimku markuu wax biyo in la yiraahdo noo daayi xeer inooma aha kanay tahay hadduu gurigaani gablan ka baqayo mid buu gablamay sooma xaq waxa weeye cidii xaq lahayd in la mudo hadduu ilaahay dartii u daysanayo ka khayroonna falillaahi alxamd hadduu diya doortana hadda diyadiisu qaadanaya hadduu ku qancay inuu diloodana hal sii qolada kufsiga bareerahaygan anigu hadeer dhiibanaya ilaahu marxaanti iga aho raalli kama ahi kamana noqonayo daalimiinta kufsiga u geysanaysa gabdhaha inta la sii daaya in inta laba qabiil isaga yimaadaan la yiraahdo aynu ka heshiin cidii tiraahda warmaha baa raa ilaahay adduunkana inuu foolxumo ka muujiyo aakhirana cadaabka ilaahay geeyo kuwa hadda xiran raalli makatiin kuwa hadda xiran reer gaalkacyoodoo dhan inagoo ah inay yaasiin baa ku jira hadduu rabo inaynu inta ummadda hor keenno waxa ay muteen in la mariyo raalli makatiin اوكي وايه hadda inoo xiray hadda kuwa maqan baa gabadhii yartaaydo caasha ahayd kiisaska dhacay umana horeynuuna dambayn mayso kuwa 5 ku qabsaday gabar 5 duurkii inta la tagay 5tiiba hadda dawladdu gacantay ku haysa waa in hebel kulli rag dadkeenan meesha fadhiyo dhan bay caa'ilay qaraabo la wadayeen ama qaar kood dal adaa oo sheegi doonaan malaynaya caasho wixii dilay kuwa noocaas oo hadda la hayo hadaa run sheegaysaan reer gaalkacyoodu aynu ku mintidna iyaga sharciga in laga bilaabo maalin dhexdaas bacadooyin kufsi baa ka dhacay reer gaalkacyood in ceebta in la qariyo lana sameeyay rabaa in la sameeyo lana qariyo masuuroobaysa ya suuroobays ceebta markii la rabo in la qariyo waa inaan la sameyn laakiin haday dhacdo waa in la sheegaa bishii hore kufsi baa bacadooyin ka dhacay nimankii geystay baa la soo xiray dawladdu waa soo qabat kharash baanu ku bixin waa keen waa xukunna waxaan niri hal dhaadhiciyo odayaashii gabadhu ka dhalatay iyo kuwii wiilashu ka dhasheen xafiiskaana iigu yimaadeen warqad bay wataan waxay yiraahdeen kiiskaan naga laab annaga ka heshiinay wiilashaasna hal iska sii daayo gabadhuna isbitaalkay taallaa kufsiga dartiisa isbitaalka u taal markaas aad u shaqeynaysan cid baa eedaynaysa nimankii noocaas ahaa 17 bari bay xiraayeen xeer ilaaliyaha warqad u qoray iyo kaaliyaha degmada hadda magaalada joogan bacadooyin bay joogan iyagoo bilaa dambiya gabadhiina wali isbitaalkay taal ilaahay baan idinku dhaarshay waxa saaciid mas'uuliyad ku qaadi karaa shalay mudaharaad baa magaalada laga sameeyay waa la rogay magaalada hadday run idinka tahay aad mudaharaadaysaan kuwa hadda u xirxiran kufsiga
kuwa ilaa sharciga lagu fuliyaa ha harsanina mudaharaadku ha socdo meelaha ay ku xiran yihiin xafiisyada dawladda soo hor fariista qadada iyo cashada iyo biyaha halkaa ku suga